bismillahirrahmanirrahiim kulan wanaagsan waxaan ahay Mawlid Xaaji halkan waa barteena YouTube-ka ee National TV qodobada wararkeena maanta ugu waaweyn waxaa kamid ah midowga murashaxiinta mucaaradka oo bayaan kulul ka soo saaray go'aankii golaha wada tashiga qaran fariin adagna u diray ra'iisul wasaare xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble kulan xasaasi ah oo Muqdisho ku dhex maray ra'iisul wasaare Rooble Sheekh Shariif iyo Xasan Cali Khayre shaki badan oo ka dhashay kulankaasi iyo waxyaabaha looga hadlay ayaan xogo idinkaga hayaa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo ka hadlay warmurtiyeedkii shalay ay soo saareen golaha wada tashiga qaran maxay ka yiraahdeen warmurtiyeedkaasi warkeena ayaan idinkuga hayaa Puntland waxay baaris ku bilowday dad lagu tuhmayo dil loo geystay sarkaal ka tirsan dawladda hoose ee Garowe wararka caalamka waxa daawan doontaan dhowr saacadood ayaan dhimashada meel ku sugayay waa sheekada Samiina oo kamid ahayd kumanaan qof oo ku xayirmay duufaan baraf ah oo ku dhuftay dalka Pakistan qodobadaasi oo dhan ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeena ee u diyaar garooba saaxiibayaal intaan warkeena gudagelin waxaan ka codsanayaa daawada inaad subscribe saarto YouTube-keena kadibna furo gambaleelka si muuqaal kasta uu ku soo gaaro aan ku bilaabo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre kulanka ayaana ka dhacay xafiiska Rooble qoraal kooban oo xafiiska ra'iisul wasaaraha uu ka soo saaray kulankaasi ayaa lagu sheegay in looga hadlay hirgelinta heshiiskii ay gaareen golaha wada tashiga qaran Maxamed Xuseen Rooble ayaa la kulmay madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre oo ay ka wada hadleen hirgelinta heshiiskii ay gaareen golaha wada tashiga qaran ee dardargelinta iyo dhameystirka doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay xafiiska Rooble kulankan uu Rooble la yeeshay xubnahan ka tirsan midowga murashaxiinta mucaaradka ayaa ku soo aaday wax yar kadib markii shalay uu soo baxay war-saxaafadeedkii ay madaxda golaha wada tashiga qaran ku shaaciyeen heshiiska cusub ee hanaanka loo saxayo doorashada dhammaan xubnaha midowga murashaxiinta ayaa la kulmay madaxda golaha wada tashiga qaran maalmihii uu shirka socday iyadoo ay shalay ugu dambeysay waxayna ku biiriyeen aragti ku aadan sida loo sixi karo doorashada kulankan ayaa shaki badan abuuray waxayna dadka siyaasadda falanqeeya ku macneeyeen in Maxamed Xuseen Rooble uu damacsan yahay in doorashada uu u boobo labadan mas'uul oo saameyn weyn ku dhexleh murashaxiinta dhexdooda iyo sidoo kale bulshadaba dhinaca kale golaha midowga murashaxiinta ayaa soo dhaweeyay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka golaha wada tashiga qaran oo Muqdisho ka socday muddo toddobaad ah midowga murashaxiinta ayaa Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda dawlad goboleedyada ku amaanay tixgelinta la siiyay talooyinkii ay la wadaageen ee ku aadanaa sixitaanka habraaca doorashooyinka sidoo kale mucaaradka ayaa bayaankan madaxda golaha wada tashiga qaran uga dalbaday inay iswaafajiyaan habraaca iyo habdhaqanka doorashada ugu dambeyn golaha midowga murashaxiinta ayaa Rooble ka dalbaday inuu korjoogteeyo doorashada oo si buuxda uu isaga saaro daafurnaanta doorashada goluhu wuxuu ku boorinayaa ra'iisul wasaaraha in uu xil iska saaro dhaqangalka habraacyada korjoogteynta daafurnaanta doorashada furitaanka saaxadda siyaasadda oo ay ugu horeyso xorriyadda kulamada ololaha safarka iyo warbaahinta qaranka oo loo ogolaado murashaxiinta ayaa lagu yiri qoraalka midowga musharaxiinta mucaaradka ka soo baxay wali baahinta wararkeena ayaan ku guda jirnaa fadlan daawade subscribe saar YouTube-keena kadibna riix gambaleelka sidoo kale like saar muuqaalka markana wararka Puntland hay-adaha ammaanka dawlad goboleedka Puntland ayaa gacanta ku dhigay dhowr ruux oo ay ku tuhmayaan in ay dileen ama ay wax ka ogaayeen dil loo geystay sarkaal ka tirsan dawladda hoose ee Garowe allaha u naxariistay Cabdikaafi Cabdi Xafiid Axmed waxaa dilkiisa loo adeegsaday toorey ama mindi mana la sheegin tirada dadka dilkiisa ka qayb qaadatay iyo sababaha ka dambeysay booliiska ayaana baaraya dad ay ku soo qabteen howlgal ay sameeyeen waxaa dambi baarista CID-da oo la geeyay meydka marxuum Cabdikaafi ayaa amartay in baaris degdeg ah lagu sameeyo shakhsiyaadka u xiran tuhunka si qofkii lagu cadeeyo dambigaasi loo mariyo ciqaabta uu mudan yahay kooxo wata mindiyo ayaa xiliyada habeenkii Garowe waxa ay ka geystaan dhac iyo dhibaatooyin kale
ciidamada ammaanka ayaana sheegay in gacan adag ay ku qabanayaan kooxahan oo dhibaato ku ah nabadgelyada. Puntland ayaa dagaal adag la gashay dadka iibiya iyo kuwa isticmaala walxaha maanka dooriya oo qayb ka ah kororka burcadda dhaca iyo dhibaatooyinka ka geysta deegaanada maamulkaasi, waxaana xiran shakhsiyaad la filayo in loo gudbiyo maxkamadda gobolka Nugaal. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray shirkii golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey Muqdisho, wuxuuna guddiga soo dhaweeyey go'aanada ka soo baxay shirkaasi. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in guddiga uu bogaadinayo qodobada la soo saaray, gaar ahaan dhammaystirka habraacyada doorashada iyo muddaynta xilliga la qabanayo. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal wuxuu soo dhaweynayaa go'aanada ay golaha wadatashiga qaran ka gaareen dhammaystirka habraacyadii muddaynta iyo turxaan bixinta hufnaanta doorashada dalka ayaa lagu yiri qoraalka. Sidoo kale guddiga ayaa shaaca ka qaaday in heshiiskan uu ku soo aaday xilli adag isla markaana loo baahnaa si looga gudbo xiisadda haatan taagan. Ugu dambeyn guddiga ayaa ka dalbaday daneeyayaasha doorashooyinka iyo shacabka Soomaaliyeed inay kala shaqeeyaan sidii ay waqtigeeda ugu qabsoomi lahayd doorashada. Arrintan ayaa ku soo aadayso iyada oo golaha wadatashiga qaran aysan shirkooda ku soo hadal qaadin khilaafka ka jira guddiyada doorashooyinka ee ka dhashay tallaabadii uu qaaday Rooble, waxayna taasi muujinaysaa inay ansax tahay xubnihii laga eriyey guddiga xalinta khilaafaadka. Si kastaba heshiiska cusub ee ay gaareen golaha wadatashiga qaran oo ay ugu muhiimsan tahay in doorashada lagu soo gabagabeeyo 40 cisho ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah isla markaana ay dood xoogan ka taagan tahay hanaanka doorashooyinka. Qaybihii ugu dambeeyay ee warkeena ayaan soo gaarnay. Markana caalamka haddaan eego, haweeney dalxiisa ah oo gaarigeeda ku dhex xanibnayd muddo saacado ah oo uu baraf xoog leh ka da'ayay waddanka Pakistan ayaa xaaladaasi ku qeexday inay geerida ka aragtay horteeda xilli ay sugaysay in la caawiyo. Samiina waxa ay ka mid ahayd kumanaan qof oo u degdegaysay si ay u soo daawadaan barafka xilliga qaboobaha ka da'aya buuraha magaalada Muri, balse duufaan baraf ah ayaa Jimcadii si lama filaana ugu dhufatay halkaasi, taasoo geedaha dhulka ku riday isla markaana xirtay wadooyinka gala iyo kuwa ka baxa magaaladaasi dhinaca waqooyi ka xigta magaalada caasimadda ah. 22 ruux ayaa ku geeriyooday musiibadan, halka qiyaastii 1000 gaari ay ku xanibmeen wadada. Dadka dhintayna waxaa ka mid ah 2 qoys oo xubno badan ka koobnaa. Sawiro iyo muuqaalo lagu shaaciyey baraha bulshada ayaa muujinaya gawaari xayirmay oo sanka isku wada haya, kuwaasoo dusha sare ka daboolay barafka. Waxaan arkayay dhimashadii oo horteeda timid, ayay tiri Samiina. Waxay ila ahayd in buuro baraf ah ay ka samaysmeen gaarigayga dushiisa. Hadal kuma soo koobi karo xaaladda aan ku jiray, ayay tiri. Mas'uuliyiinta booliska ayaa sheegay in 8 qof ay u dhinteen qabow dartiisa, halka kuwa kalena loo malaynayo in ay sababsadeen qiiqa ka dhashay kuleylka ay gawaaridooda ku shideen si ay markaasi diirimaad u helaan. Waa hagaag, waanaga intaa warkii aad ka daawanayseen barteena YouTube-ka ee National TV. Inta ku kulmeyno wararkeena soo socda, nabadgelyo.